Okay, extract files markii la sameynaa intaanan gelin waxa dhan inta fiirort meeqa line oo taal 1507 line wixii aan rabin waa tuuraya wixii kalena mid walba hal folder aan sameysana meeshaan ku wada shubo doon. Okay, let's see waxa noogu horeeya CSS ka noogu horeeya oo head section ka dhaxaya here kan again line 3 ilaa line 28 inta ku jirto dhan xaleena kad ayaan ku sameynaynaa intaan kadde new tab style dhan uma sameynaya basti aan leenahay save halkan folder igu sameey folderkaas waxaa noogu bixisaa library inside our library waxa aan soo jaray maxay ahaayeen yeah head section صح inta waxay dhahdaa markii head.php headkan halkaas meel bas aan ka bedela project name keena halkan gelin tusaale school system oo kala aan dhaha intayna keen meesha aan ka jaray maxaa u baahanay halkaas maxaa u baahanay php aye function kia waca include hal shayna waa ka tagay inta waxaa leenahay folder ku jira sax library /head.php so file kan marka sidaan aan nahay horta originalkiisu muxuu ahaa file kan html file oo ah file kan ay dhahdaa right click rename index.html ko ay dhigtaa index.php qoraalkan waa isbedeli doonaa goorme markaan dib ugu soo laabano color ayuu qaatay marka hore white ahaa hadda color uu qaatay haddii aan tiro systemkayga maxaa ku dhaca ka dheeb isaga systemkeena tag refresh dheh maxaa ku dhacay design wixii qurxoonaa dhan laga tagay CSS ka dhanaa baxay soo celi save garey ku laabo refresh dheh extract maxay noo haysaa include wixii halkaas jiro dhan ayaa leeyahay hal meel uu yaala systemkayga dhan halkaas meela ka maamula wixii CS hadaa wax rabo cusub CS cusub aan rabo halkaas soo dhigana wabillahi tawfiiq yaa ii xiga marka section badan halkan yaala section ka labaad body aan soo dhaxgaleynaa div kan good rubber ayaa loo yaqaan rubber kan waa baadiga dhan wixii ku jira ayaga si kala saari doona qaybtaan waxay tahay qaybta kore ee loogada iyo waxyaabahaas ay ku jiraan qaybtaan waa navbar waa ushaan koro ushaan ay saarayeen home iyo contact iyo waxyaabahaas ay saarayeen waxaa loo yaqaanaa nav so navka line 15 collapse oo yaray ilaa line 149 inta ka dhaxayso waxaan leenahay cut new tab wax style oo gooni oo html aan sameynaa mala sidiisa meel u dhiganaa waxaan soo jaray waxaan dhex dhigaa marka folderkayga then waxaan leenahay nav.php okay meeshaan ka soo jarnay maxaa u baahanahay marka inaan dhigano php include ama require mid kaarka qaado then waxaan leenahay folder name keena library /nav nav barka caadiga aad taqaaneen meeshaan waxaa yaala line 19 site waa site park isaga maxaan ku sameynaynaa collapse calaamadaas yarta ah falaartaas arrowgan click siina marna waa fur marna waa xir hadda waa ii xiran yahay line 19 ilaa 691 line ayaa halkan yaala covid maraba kad
new tab paste save then waxay dhahdaa sidebar dot php. Okay, sidebarkan marka inta aanan gadaal u laabanin isaga aan naqshadayno sababtoo ah meeshaan wax tiro badan ayaa waxaan oo menus ah oo aad ku tiro badan ani ma reebin waxaan ka soo reebanaa qayb yar ayaan ka soo reeban doonaa kor inagee systemkeenaan intaanan gelin halkan waxaa yaala linki ayaa linkigaas wuxuu yahay tusaale admin lte3 haddii click aan sii waxaa la gei doonaa page index3.html loo yaqaan soo isagaan xiraynaa pagekeena haddii click la siiyo pagekan yaa laga bixin line 3 index3gaas yaala waxaan leenahay index.php haddii click la siiyo pagekan yaa laga bixin halkan waxaa yaala admin lte3 meeshaan waxaan qaadanaynaa bold oo ah qoraalka strong iga dhig kadibna waxaan leenahay system namekeena wuxuu ahaa school system qaybtan hoos taalo alexander ay ku qoran tahay waxaa laga rabaa systemkan beri qofka soo gali doona magaciisa inuu halkan soo galo system balla ayaan qoraal iskaga sii qoranaynaa skishana u dhiibi doonaa beri hawshaan ii qaba doona qaybtan kasoo gudub waxaa timaadaa qaybtan menus waxa ugu horeeya waa dashboard version 1 version 2 version 3 soo saddexdan version ayaa yaala kan dhan waa tira iyo kan labaad kan saddexaad basan soo reebana halkan falaarta clixi falaartan kalena waxaan dhahnay marka labada ugu horeyso midkan oo ay ku qoran tahay dashboard iyo midkan kale ay ku qoran tahay widgetska labadaas waan ka saaraynaa qaybta sare remove waxaan noo soo haray layoutka isaga yani falaarta aan yarayno line 38 ilaa line 97 wixii ka dambeeya waa tiraynaa iyagana no need sambal bisaan ka rabaa inta kale ku goobaysana ilaa intaa maan tira may kor u soo bax ul-ka dhexdiisa li-dan intay ka furantaa intay ku xirantaa midda yani ul-ka ka dambaysana waa main ul-ka isagaa tirin intaasa iska tirayna meeshii aan ka soo jarnay marka oo ahayd inta aan imaano waxaan leenahay php include then folder namekeena sheeganaynaa slash wixii aan jarnay waxay ahaayeen sidebar.php. Okay, now let us refresh. See, halkaa maxaa dhahay problema waxaa ku jira lay dhahay naafka saa u qortay lane 15 error jir waxaan kasoo tagay naaf naaf bar maan dhahay naaf.php aa laga rabaa so waa ushaas kore qaybtan wixii tirada badnaa ee saarnaa waa la tiray waxaa noo soo haray layoutka inta waa bedelnay layoutkanne isna waxaan leenahay aan kasii dhigano sidebar ku laabo waa kan waxaan leenahay marka layoutkan waxaa iga dhigtaa tusaale developer area oo kale soo saddex submenu iga dhig halkaayna keen href meesha waxaa u baasgaraynaynaa usage.php page aan abuuro doono markii kelig la siiyo waxaan leenahay create useries sidoo kale midaan waan reebanaynaa useries list ayaan keeni doonaa ima abuurna hadda wixii ka dambeeya waa iska tiraynaa marka
إلا الآي ذا سنترينا إلا أنت ترينا okay then page كأنه كل هذا meeshaan copy-gana waxaa iga dhigtaa user refresh waa kalaama deployer maxaa soo dhex galay labadana noo soo gashay haye meeshaan baadiga markaan soo galno wax tiro badanaa saaran isna aan tirna wixii ku jiro gudahaas index pagekan kusoo laabanaa oo soo soco meeshaan section ay ku qoran tahay waa baadiga gudaha waxa ku jira sectionkan laba row ku jirto rowgan koowaad oo reebana rowga labaad inaga tir rowga labaad waa line 109 ilaa 619 line so isaga dhan naga tir meesh markaan tiro waxaan leenahay refresh baadigan waxay ku jiraan waa baxayaan iconkaas bisaan oo soo har footer area in again footerka isna hal meel aan dhiganaynaa kadde new tab save inta hay dhahdaa footer.php so footerkan hadda static waa dynamic aan ka dhigano tusaale website-kan waxaa la sameeyey ixtiraaqadiis waxaa la bilaabay 2015 ilaa maanta marka waxaan rabaa php inaan ka dhigano sanad walbaane waxaa dhici doono meeshaan sanadeedu isbedelaya markuu sanadka isbedelo sanad cusub yimaado maxaa dhaca increment uu sameeyo soo aqri current year-ka hadda la joogo okay linkiga naga tir admin lte ga waxaan leenahay cs19d oo kale meeshii aan ka soo qaadnay waxay ii samaysaa include ama required functionskii aan waxaan ku wacaynay library / footer.php waxaa ugu dambeeya halkan waa qaybta javascript-ga isna waa qaadaynaa intaa dhan naga tir kadde new page library folder soo dhex gal halkan waxaa leenahay marka script.php then halkaa ina keen sorry meeshaan waxaa leenahay php include or require library / script.php okay now main page keena meeqa line oo noqdaado 130 line markaan bilaabayna meeqo ahaa 1500 still wili wax kale oo aan tiri karaa jiro saal rowgan hadii aan bixiyo meeqa soo haray ek 68 row ay soo ar from 1507 ka keen haddana wuxuu taagan yahay 68 soo marka waxaan tiri code aad u tiro badan codekaasna ma ku laabanaya markii laga reebo sidebar yani maxaa wax cusub haddii aan keeno waa inaan ku daraa tusaale main page-keena haddii aan tago iconka xataa waa tiri hadda si website-keeda qaleel waad yani dashboard-keyga inta ee current year-ka hadda la joogo fiiri php maxay noo haysaa website-kan xilligaana la bilaabay samayntiisa ilaa intaan uu jiraa current year-kan dynamic waa sanad cusub haddii la gaaro automatically wuxuu sameynaa
generate sameeyna sanadka cusub 2023 la gaaray يعني current year isu aqro mar walba okay so waxaan tagaynaa indexkeena qaybta inoo soo celi oo baahanahay iconskan then waxaan u baahanahay marka menuskan imaa iyaga waxaan ku samaynaynaa kadaan leeyahay meesha commentigan saarana commentigan waxaan leenahay tusaale developer area intana waxaa leedahay index here so maxaa awoodaa marka meeshuu iga furan yahay meeshuu ku xirmaa labadaba u jeeda copy-de mid usoo aragta halkaa le baaside tusaale student oo kale halkaa aan dhaano inta waxaa leenahay registration is new student intana waxaa leenahay student list students.php okay haddii refresh aan dhahno pagekeena maxaa halkaan soo galay registrations iconkaana bedel tusaale useries oo kale s igu dar hadda hal xabo waa useries markaa ka dhigna soo noqonaa fiiri haddii kan aan imaado kan aan ku dhufto meeluu aadaa ma jirto user page weli ma abuurin okay let us continue aan sii wadana marka waxaan abuuraynaa indexka nagee index page isagaa main ah file walba abuuraysid indexka copy new tab save useries.php filekaa banaanka dhig folder gelin then rowgii hadday aan dhahanay waa reebanaynaa isaga waa tiraynaa hadda users markii la joogo nadiif iga dhig refresh de haddii aan soo galo developer oo user aan ku dhufto hadda meel banaana laga keen user aan ku jira haddii inta aan ku laabto indexaan ku dhex jirnaa form aan rabaa marka userka inaan kusoo darsado intaanan formka gaarin div halkaan noo keen waxaan leenahay class row inside this row another div class call md2 copy so midkaan waxaan leenahay marka 8 nooga dhig haddaa rabtidna waa iska dhaafi kartaa muhim ma aha waxaan tegaynaa marka systemkeena folderkan pages aan tagaa waxaan kasii tegaynaa forms waxaan kasii tegaynaa general.html kadib waxaan leenahay control f inta waxay igu qortaa quick example waaba kan waxay soo qaadaa marka card primarygaas noo soo qaad falaartaan noo xir intaas oo ii calaamaysan ayaan qaadi doonaa copy de main pagekeenan dhexgey useries dan halkaan baasiin haddii pagekayga aan ku laabto oo aan refresh dhahno kadibna aan soo dhex gala useries waxaan helaynaa formkeena halkaan ka helayna see form ayaa halkaan noo yimid formkan user registration ahaan noogu diiwaangeli halkaan waxaan leenahay user registration form okay meesha ugu horeysa waxay dhahdaa full name intana waxay dhahdaa text id-giisa naga tir name noo keen isoo gaabi f name enter full name ii dhima
okay copy ama kan koreele ii copy username you name it then password hal form haddii aad samaysatid dhammaan formiska kalena waa qis calaa dalika asile ka mithal qaadane name password so validation igu xir required intana waxaan leenahay required iyo sidoo kale midkaa naga tir sidoo kale kana naga tir okay inta waxaan leenahay email enter email oo ah required iyadana so the last one date okay yeah date only maan ka dhig required midkaan waxaan leenahay date iga dhig namekiisa date placeholder no need intaa waxaan leenahay marka value oo dynamic aan keeno echo date then current year y month iyo day hoos imaaw badhankan waxaan leenahay register isna inputkan name aan raaciyo btn register propertiyada waa iska saxay wax walba ii saxan yihiin ledaas refresh see waa kalaa marka formkeena aadka u qurux badan waa kana validation wax walba ay diyaarsan yihiin bas database haddaa ku xeer automatically waa shaqayn doona haddii main pageka aan ku laabtana waa kaas oo wuxuu i keenaa home pagekayga ayuu i keenaa